بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وحنا وناكسن داوديال نودي ورسن مeel walba laga daawareysaan لنا وما وريتو وشادي ورطا وصل ميديا ولا بو أفلحي وصل ميديا ولا بو أفلحي galada minus ayuu barnaamijkeena toddobaadkan kawsareed kaga soo diyaarisay ana barnaamijkeeni aan ugu magac daranay Ronsan Counter Media toddobaadkan waxaan soo booqday Soomaalida ku nool gudaha magaaladan hadda waxaan gaarayaa goobaha badan ay isugu yimaadaan Soomaalida ee magaalada ka leeyihiin meel center ah oo u dhow baanhafka magaalada goobtaas ganacsi ayaa wareysi markaan soo qaadaya si aad u daawataan xog rasmi aad uga heshaan barnaamijkeena aad la socotaan ina mariya hadda waxaan la kulmay intaan ku sii gudbi jiray wadada mid ka mid ah Soomaalida aagaan oo kale markaad soo marayso waxaad arkaysaa Soomaali fara badan maadaama ay ka dhow yihiin meelaha Soomaalida badan ay isugu yimaadaan hadii aan leeyahay dukaanka iyo waliba masjidka iyo meel ay ku shaaxeeyaan oo ay maqaahi Soomaalida ku leeyihiin halkaan taaganahay meel aan ka fogeyn walaal soo dhawo magaca ando waxay aad ku salaamayaa Hamza walaal soo dhawo Ronsan Counter Media barnaamijka lagu magac daray ayaa toddobaadkan ka sameynaya gudaha magaalada waan kaga maadnaqayaa sida haddaba ii muuqatay waxaad u socotay Soomaalida meel ay isugu yimaadaan aad iyo aad maadaama magaalada gudaheeda aad ku jirtay Hamza magaalada balka waran waa ku soo dhaweynaa magaalada waa caasimadda reer Khalif waa Minus waa magaalada aad Soomaalidu badan tahay waxaana waxyaabo badan ee magaalooyinka la haysan Soomaalida waxaana masaajidka oo intaba isku agdhow tii shaaxa iyo galabtiisa lagu yaqaan Soomaaliya iskulaab baa la cuni jiray wax la saambuus iyo buur iyo isku laabo wixii oo dhan waa isku haysanaa dadku iska soo daalan halkan isku yimaadaan wada sheekaystaan ciyaarihii wax kasta laga daawanaya marka waxaan rajaynayaa Soomaalida jiro ku nool iyaguna inay meelaha kale caasimadaha magaalooyinka ay ku badan yihiin saas oo kale ka dhigtaan marka isku yimaadaan dareen ahaan maxaa dareentaa wallaahi waxaan aad isku imaano waqti wadad aad isku Soomaalida boqol waa la iska sheekaystaa ciyaaraha la iska wareystaa wadankii waa la iska wareystaa siyaasadda waddanka meesha maraysa waa la soo weydiinaya dhinac kasta la soo weydiinaya waxyaabo badan baa la soo weydiiyaa sheekadu ma dhamaato kale saa un baa faay abban lagu sameeyaa lagu kala yaaca haddana kulanka damaal isku yimaada laga sii wadaa mismida su'aal bilaaba ma ay soo imaanaysaa wax soo imaanay dadku iska daalayeen magaalada ka dhex shaqeynayaan qof kasta markii shaqada soo dhameeyo saxaab imaanaya boosiin ka qaadanaya marka xaafadiisa sii socdo uu iska soo maraya adeegii uu yaala iska sii qaadanaya oo wax kasta oo Soomaalida wax lagu galo waa laga helayaa badan aad iyo aad marka Soomaalida kalena waxaan dhihi lahaa idin kana saas ka dhigta magaalooyinka maadaama barnaamijka toddobaadkan markii uu idinku yahay daawadayaasha maxaad jeceshahay loo wadaagto wallaahi horta daawadayaasha aad baan ku salaamayaa dhammaantiin aad baan u salaamayaa waxa leeyihiin dhammaantiin soo dhawaada magaalada ku soo dhawaada oo nagu soo dhawaynaynaa in badan adiga asxaabtaadu waxa rajaynayaa inay noo imaan doontaan nagu casuumi doonaan aad iyo aad marar kale badan oo idin soo laaban reer Minus aad baad u baasantahay walaal waan ku mahad celinayaa daawada sida aad maqlaysaanba waa mid ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Minus oo ka warbixinaya sida dhalinyarada ay galbiga halka ay isugu yimaadaan goobta aan ku suganahayna waa dhismaha inta badan Soomaalida ay galbiga waqtiga dambe ay ku wada sheekaystaan isla markaana ay ka soo adeeg doontaan hadba waxay u baahan yihiin ay ka qaataan dukaanka Soomaalida ay halkan ku yaalaan markaan gudaha dukaanka ayaan sii gaaraynaa ina mariyo daawadayaal halka idin muuqata waa meesha ay dhismaha kaga taalo dukaanka ay Soomaalida ka soo adeeg doontaan ee bartanka magaaladan haddaba waxa ii muuqanaya in hadda mashquul fara badan uu ka jiro dukaanka gudaha dukaanka waxa ku jira Soomaali fara badan oo rag iyo waliba dumar isugu jira kuwaas oo halka kala macaamilaya ganacsadaha ku jira si marka ay ugu helaan waxyaabaha ay daneynayaan inay ka iibsadaan ama ay ka qaataan
sheeko xiiso badan iyo warays dhinacyo badan taabanaya oo arrimaha ganacsiga ka hadlaya ayaan ka wareysan doonaa milkiilaha gudaha dukaanka ugu jira ama howlwadeenka hawsha hadda gacanta ku haya aynu haleelnay waqtigan inaan la kulanno. السلام عليكم. daawade hadda sida u jeedaanba waxaan ka soo dul dhacay dukaankii howl muhiim ah ka socota milkiilaha waa mashquulsan yahay waxaan rabnaa inaan ka codsano inuu wareysina siiyo walaal waan ku soo booqnay magaaladan soo gaarnay Maynis dukaanka Soomaalida ee magaaladan inuu yahay jecelahay marka waxaan rabnaa inaan wareys yar kula yeelano su'aalo kooban hadda waqti noo hayso awad weydii kartid السلام عليكم مقعي حليم محمد عمر بالدها هل كان عندنا مدة آد ودير وما سنتين إن هل كان نقص بوقتين مقالة ماينس هالها وواحد جرتي عند دكان صوماليات إدات صوماليات ماشان جوجين آد بقى فرح سنة هاي إن دكاننا لو كفري مقايدنا لو كفري مساجدنا لو كفري صومالي دورنا أي السوتي معدو halka ku kulmaan walaalo leeyahay aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay waaba jirta inaan keligay ahaa oo meeshan aad iyo aad ugu yareyn Soomaali badan baa timid inay iskaashadaan iswalaashadaan ishadaan isu soo dhawaadaan aad baan ugu faraxsanahay aniga xaggayga masquud ayaan ku ahay inay dhamaantood halkan ku kulmaan waa wax fiican wiilkan walaalkeena ahaa noo furay maqaayad dukaan timajare meel ay Soomaalida dhan ku soo hirtaan isboortiga ku fiirsadaan masaajidkooda galaan shaahooda ku cabaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay qof marka way arag baa tahay oo ku sugan gudaha magaaladan Soomaali badan aad uga soo horeysay magaaladan xaruntan hadda ganacsi maadaama ay ku cusub tahay magaalada muddo 2 sano ay furan tahay baahiyihii Soomaalida ay qabeen kuwa xilliga aad la joogtay adiga iyo kuwa cusbaaba ما تهاي ميت كحقبترته والله waxaa jirtay waa horta waxa meeshan muslimka joogay Turkiga ama Marookaanka hilib xalaalka laga gato laakiin aad iyo aad ayaa loogu baahnaa waxyaabihii Soomaaliya aan waagi hore u xiisnay cunooyinkii Soomaaliya xawaajiyaashii sharaabkii fiimtoogii waxyaabihii oo dhan kalluunkii laas qoray baa ogaa waagaas aniga kalluunkii Soomaaliyeed laga keenaa waxyaabihii oo dhan baa halka iigu yimid waaba iga daba yimaadeenba marka aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay waxyaabo badan ayaa la keenay oo nagu soo kordhay waxaas oo dhan ayaan u xiisay buskudka abiwalad waxyaabo badan oo mar hore noogu dambeysay ayaa iga daba yimid baa la dhihi karaa walaal soo dhawow magacaagan ay noo sheeg waxaad warbixin naga siisaa sida Soomaalida ay halkan iyo ganacsiga qaabka u socdo waan dhawahay Kawsar Media magacaygu waa Mahdi Maxamuud Xalane su'aashadii weydiisay haddaan ka jawaabo ganacsiga Soomaalidu ilaa iyo hadda si fiican u socdaa way wanaagsan yihiin gaar ahaan waxaan joognaa Highland Valley caasimadiisa Maynis dukaanka Maynis wax ilaahay looga mahadiyo ku jira waayahay qaabka ganacsigaagu u socdo ka waran meeshii la rabaa ganacsigu ma yahay mid aad Soomaalidu hadda aad iyo aad Soomaalidu waxaan u keenaa way la haystaan way la qabsadeen anaguna maaragtay waan la dadaalnay intii maaragtay waxyaalaha u baahnayeen ayaan keenay baahidoodii ayaan maaragtay isku daynay inaan dhamaystirno waxaan keenay alaabuhu ay markaas naga dalbanayeen marka waxaan rajaynaynaa dalabkii noo soo gudbiyeen Soomaalidu in anaguna ka jawaabnay oo marka baahidooda waxa adag in qof markuu wadanka ku cusub yahay ama Soomaali uu yahay markuu tago xarun kale oo ganacsi oo ajaaniba inay ku adag tahay dhanka luqadda hadii haleed haba ugu horeysay meelaha ugu badan ee Soomaalida ay kala kulmaan dhibaatooyinka xagga isku xirka luqadda iyo qaabka qofka marka uu dalban lahay wax uu rabo maadaama aad Soomaali ahaan ay qofku farxad dareemayo markuu qof Soomaali oo dukaan leh uu u yimaado hadba sida wax uu doonayo iyo qaabku wax uu rabo iyo wax uu raadinayo inuu ka helayo way ka duwan tahay xaqiiqada
bal ka waran haddaa la sheekaysato Soomaalida waxyaabaha ay inta badan daneynayaan ama ay kugu amaanayaan xaruntan ganacsi ahaan maxaa ka mid ah waa su'aal wanaagsan Kawsar Media Soomaalidu horta way kala su'aalo badan way kala fikir duwan yihiin Soomaalida dadku u kala fikir duwan yihiin laakiin arinta ay ka siman yihiin ayaa waxa ah maadaama ay wadankoodii ahan ay joogaan oo ay wadankoodii dad ay jirto dad 20 sano halkan jooga dad 10 sano jooga dad ugu yaraan qofka ugu yar aad dhihi karto waxa ugu dambeysay markaad weydiiso ilaa muddo gaaraysa 5 sano marka waxay markasta doonayaan inay arkaan ama ay ka dalbadaan wixii ay wadanka yaalay sida hore u yaqaaneen sida kalluunkii oo wadankii ah sida maaragtaa waxyaalihii wadanka ka soo bixi jiray sida digirta sareenka haruurka masagada sida Soomaalidu taqaanaan galeyda ama waxay maaragtaa wixii Soomaaliya ka soo bixi jiray ayay danaynayaan odkaca ama luqmad sidii loo yaqaan marka su'aalaha badan ay weydiinayaan Soomaalidu waxa weeyaan inay helaan waxyaalihii Soomaaliya ay ku yaqaaneen si maaragtaa xasuus ay helaan ama ay u arkaan maaragtaa inay wadankoodii ay dareemaan in maaragtaa waxay ka yimaadeen marka waxay ka jecel yihiin markasta alaabaha halkan yaala ama Yurubta yaala waxay wadankooda yaaleen marka dalabka badan noo yimaada waxa weeyaan alaabahaas noo keen dukaanka waad aragtaan u malaynayaa storna uu leeyahay alaabo badan ayaan gadnaa oo kala duwan waxaan gadnaa cuntadii aan gadnaa oo nooc kasta tii wadanka aan joogno iyo kii Soomaaliya ah alaabihii waa gadnaa sidoo kale dharkii aan gadnaa u keenay kareemadii oo kale waan keenay oo dumarka waan u keenay hawladan kale oo hayna marka ganacsigu wuu ballaaran markaan dukaankan aan furnay markii ugu horeysay hadda 2 sano gaaray ka bacdina haddana waxaan ku fakarnay maxay kale u baahan yihiin Soomaalida waxaan isku daynay markaas in haddana maqaayad furno ay shaah ku cabaan ku sheekaystaan arrimahooda ay isdhaafsadaan waan furnay falillahi alxamdu ayadana waa meeshan bay ku taala waa soo arki doontaa ka bacdina maaragtaa Soomaalida waxay ku hadleen hadalkii ahaa waxay sababtoo waxay ma haysanin meel ay isku yimaadaan meel ay ku sheekaystaan waxa wadankoodii ka dhacaya waxa jira in meel ay wax ku gudbiyaan ma haysan marka waxay heleen meel ay wax ku gudbiyaan ku kaftamaan ciyaaraha ku daawadaan halkaas ka bacdina haddana waxay baahi kala soo baxda leeyahay maxaa loo baahan yahay oo waxa la tima jare ayadana waan furnay oo ayadana waad soo arki doontaa marka waxaan aaminsanahay Soomaalida baahideedii intii badneed inaan dabarna aaminsanahay aad iyo aad baahi walba oo qof Soomaaliyeed ka imaanaya ama uu idin lahaay waxaas baa loo baahan yahay magaalada ku soo kordhiya ayaad dabarteen markaana aad fuliseen hadii ahaa lahayd meelaha timaha lagu jarto rag iyo dumar buu yahay aad iyo aad sidoo kale maqaayad baa ku taala meelaha ka fogeyn dukaanka masjidka ayaa ku yaala sidoo kale aad iyo aad waan dareemi karnaa runtii markii qof Soomaali uu magaalada ku sugan yahay isla markaana u baahan yahay inuu markaa la kulmo ama uu arko ama wax walba uu doonayo uu ka heli karaayo uu u yimaado qof Soomaali ah oo ganacsada ah Mahdi Maxamuud Xalane 2 sano ayuu dukaankan aasaasay ama ku howlgalaya gudaha magaalada adiga xirfadan ganacsi horey miyaa wadanka ugu shaqeyn jirtay bise hadda inta ka bilowday waa su'aal wanaagsan waan ku shaqeyn jiray wadankii waan ku soo shaqeyn jiray farqiga u dhaxeeya markaad wadanka ay ku ganacsanaysay iyo hadda oo dalka dibadiisa gaar ahaan Jarmalka aad ganacsi ka furatay bal ka waran horta ganacsi waa isma dhigi karo Kawsar Media farq weyn baa u dhaxeeya markasta wadankii iyo halkaanu waa ganacsi waa isla ganacsi laakiin waxay ku xiran tahay qaabkaad adigu u hormarisid markastaba meesha aad joogto ganacsi ugu hormarisid iyo dadka markaas meesha joogo oo aad alaabta u keenayso iyo waxaad keenayso waxa ay yihiin markasta waxa shardi ah oo aad ganacsi furanaysid dalabka ku imaanayo dadku u baahan yahay inaad keeni karto meel kasta joog ama Soomaaliya joog ama meel kasta joog marka anagu markasta waxaan isku daynaa meeshan joogno ma fiirino inaan baahida dadkan uga imaanay inaan daboolno meel kasta ha joogeen maadaama aad ku ganacsanaysaa dal aan dalkaaga ahayn mararka qaar bala kulmataa dhibaatooyin ha noqdaan ama cabashooyin ama waxyaabo mararka qaar aad jeclaysan inaad kala kulanto meherada waa su'aal wanaagsan waa ku dhihi karaa laakiin haddana waxaan isku daynaa cabashadaas inaan si dhaqso u xalino cabashada hadday soo gaarto waxaa jirta cabashooyin ku imaanaya oo ama waa iska ganacsi ama kaaga si kasta ay ahaato markaas waxaan isku daynaa qalad anagu leenahay ka dhignaa kastamka ma saarno markaas aan saxnaa anaga si isan u soo noqon qaladkaas taa waa mid idinkaga dhaxaysa bulshada idin ganacsiga aad iyo aad dadka aad bartid u tihiin ma jirtaa dhibaatooyin dhankooda ayagana ka tirsanaysaa
ama arintaada ganacsi aadan ku fahmay mayaan dhihi karaa haddaad waddankan hadda aad joogto haddaad adigu saxan tahay oo sidii loogu talagalay aad u samaynaysid kolley dowlad weyn baan la joognaa Yurub aan joognaa system ay leeyihiin markaad ganacsi furanaysid systemkaasaad marka hore soo baranaysaa ood akhrinaysaa waqti siinaysaa ka bacdi markaad furi kartaa meesha wadadaas soo qaado adigana wadadaas aadan ka leexanin oo sidii loogu talagalay aad raacdo wax dhiba oo ku imaanaya male marka waxaan isku daynaa inaan qaladka iska ilaalino anagana qaladna lama yimaadaan talaabadan aad qaadeen waa talaabo farxad gelinaysa bulshada oo dhan gaar ahaan dhalintana shaqo abuur noqonaysa meelaha kale aad ii tilmaamtay sida maqaayada iyo timijaraha intaba ma hal meel baa mise waa midba gaar bay u shaqaysaa marka laga hadlayo milkili ahaan dadka abaabulay ama hawshan gacanta ku haya maqaayada iyo halkan iyo meeshaas waxaa abaabulay dhalinyaraan ka mid ahay aniga ayaa abaabulay waa marka annagaa wada leh oo waa maarta waa hal meel ka wada tirsan hal meel waa iskaashi mid oo wax qabsaday oo wax isku darsaday oo wada shaqeynaya dukaamadu waxaan rajaynaynaa xataa meelo kale oo ka furan yihiin inaan badino oo meel kasta geyno xataa waxaan kuugu dari lahaa Kawsar Media alaabta waddanka hadda aan joognaa Mainz baan joognaa oo Rheinland-Pfalz waxaan isku daynaa inaan Jarmalka dhan gaarsiino oo boosta ugu dirno magaalo kasta aan gaarsiino gruubiyay leeyihiin qof kasta uu soo dalbanaya alaabta uu rabo markay timaado waa loo dirayaa DHL loogu dirayaa marka alaabta halkan ku gadno fariimaha aad rajaynaysaan in ganacsiga aad ku balaarisaan ayay ka mid tahay mid aad iyo aad may hadda waan bilownay already waan bilownay online uu leeyahay shop uu leeyahay marka waan dirnaa alaabta markasta waan dirnaa qaybta online ka hadda shaqeeyaa aad iyo aad way shaqeysaa oo ma aha waxa degid bil soo ma way shaqeysaa waayahay daawadayaal badan oo magaalada aan ku sugnayn ayaan filayaa qaybta online ka inay kala soo xiriiraan waxyaabo badan iyaguna doonayaan marka ay dalbadaan hadduu eeba karaal noqdo qaybaha ugu dambeeya isla soo gaarnay wareysigii koobnaa aan la yeelanayay Mahdi Maxamuud Xalane oo ku sugan gudaha goobtan ganacsi oo aan boqoshada ku soo gaaray Mahdiyow aan dib ugu soo noqday markaan dhanka deenta oo kale Soomaalideena qof aan jirta iska bixiya qof aan keenin ay jira ganacsigana qaabka u socon kara iyo inuu dhibaatooyin marka qaar ay arinta leedahay arrimahaas oo kale ma dhacda maxaase ku xalisaa waa su'aal wanaagsan waa Soomaalidu sidaad sheegtaba Kawsaray waa dhaqan wanaagsan in Soomaalidu kii markuu waxaysana u dhiibo markuusan hayna laga sii bixiyo oo uu yiraahdo arrintan igu sii qor way jirtaa meel kasta marka diyaanaguna waxaan baahidu waxay tahay muhiimadu waxay tahay kuma nacno oo qofkii dad wanaagsan baan haysanaa oo Soomaali ah oo dhaqan wanaagsan kii haysana uu dhiibaa kii aan haysana uu iska soo dhiibaa waa caawinaa markuu hayana uu iska keenaa marka ilaahay hadda wax caqabad oo nagu yimid ma jirto qof kasta ma jeclo wuxuu cunay inuu qarsado aad iyo aad fariintaada ganacsi maxay tahay oo daawadayaasheeda la wadaagayso fariinteeda ganacsi waxay tahay waxaan rajaynayaa in ganacsigu siisa dhan horta uu iskabaa anigu malihi aniga kaligu noo furan yahay halkaas oo ku akaata malihi waxaan leenahay ganacsatadu ha badiso markasta uu ganacsigu bato waxaa badanaya cududa dadkaaga sida dadka kale la tartami karnaa waddanka ku aqoonsanaya canshuurta soo geliso marka waxaan dhihi lahaa bulshada waxaad noqotiin dad maarta ganacsiga awood ku leh iyo waxbarashada labadaba maxaa yeelay dhankasta markaad ganacsi keentid waxaad dabooli kartaa dad badan oo aan maarta ama hadda aan waxba haysan oo ama shaqaale noqon kara ama maarta dhanka wax ka caawi kartaa marka waan gartay marka laga soo tago Soomaalida ku ganacsi imaata ajaanib ma jiraan oo sidoo kale xaruntaada imaata si fiican sidaad arkayso dukaanka waxa ku qoran Crash Shop ASEAN waa magac Pakistan oo Aasiada ah hawiyada waxa ugu badan kastamka ayaa ayaga ugu badnaa ayada Soomaalida marka waan filahay alxamdu waa meeshoodii hadana badana macaamil ahaan waa Aasiyaanka Aasiyaanka ugu badan ay halkan macaamilku aad iyo aad marka laga soo tago Soomaaliduna waa dhaqankooda ka waran sidee qaabkee baad ula dhaqan aad iyo aad waxaan ula dhaqnaa sida caadiga ah kulley waxay meesha hadda u soo doontaan waa alaab iyo waxay markaas doonayaan si wanaagsan ayaan uga gadnaa waana soo dhaweynaa maxaad ku xulatay magaca boorka ahaan u dhigsatay meesha waxaan haddaan Kawsar kuu sheego horta markii ugu horeysay dukaanka meesha waxay ahayd xarun ay leeyihiin
oo dadka Asiaanka ah marka waan kala wareegnay xarumaha meeshaan ah markaan kala wareegnay waxaan go'aansanay in magacu sidiisii ahaado oo aan la bedelin dhaxmartay saas la ajriyeeda magaca ugu dooran aan sidii ugu annaguna waxaan markaas ku daynay alaabtii meesha taalay oo marka hore lagu yaqaanay inay meesha ka go'inin oo aan keenno Soomaaliduna maaragtaa waan weydiinay raygaas way nagu taageereen waayahay waad maasantahay Mahdi daawadayaal sida aad maqlaysaan isla markaana wareysiga uu idinkaga imaanayay gudaha xaruntan ganacsi ay Soomaalida ku leedahay Minus Mahdi Maxamuud Xalane ayaa ka warbixinaya su'aalo dhowr ahna idinka aad jeclaysan lahaydeen inaad weydiisaan qaarkiina idin weydiiyay halka ayuu programkiina ama barnaamijkeena aan ku soo gabagabeynaa waad ku maasantihiin la socodkii daawashada barnaamijkan qaybihiisa kale ayaan u gudagaleynaa iyo xarumaha kale ee Soomaalida ku leedahay ereyada aan joogno halkaad arkayseena waa qaybta ragga magaalada dhalinyarada ku sugan xilliyada ay soo socdaan waxay ku tukadaan oo ay salaad isaga bixiyaan masjidka dhismaha iga dambeeya sida aad ka dheehan kartaan qoraalka iga sareeya waxaa ku qoran masjidka Abu Bakar عبد الرحمن صورو حوصر ميديا ويتصوب وقتي بلو حد كورد سيدا الصوماليدا حلية الصلاة يصح حتى في المسجد كان سيدا الصوماليدا مقالة الصمر أي وقع قاتل محجابها اللوغة باهنة aad maasantahay walaasha Kowsar aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa magaalada Minus runtii magaalada Minus waxaa degan Soomaali xadigoodu uu badan yahay waxaa laga furay halka sadarkiisa masaajid baahi dukaan intaba ay bixinayaan adeegyadii marka hore waxaa masaajid Soomaaliyeed ugu weyn jiray magaalada Kisbaden saas daraadeed baahi ay magaaladan ay u qabto awgeed waxaa isqaban qaabiyay dhammaan dadkii magaaladan deganaa community ay sameysteen agooda ay ku istaageen dadaal dheer kadib waxaa dhashay in masaajidkan maanta ay halkan masaajidkan wuxuu hirgalay 2019 qoraantiisa ayuu hirgalay maasha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyartii odayaashii dhammaan isku xilqaamay ay u istaageen in masaajidkan halkan ay ka furaan runtii halkan gobolkan ahaan khaas ahaan Rayna Faris meelo badan ayaa ka jira masaajid oo Soomaaliyeed dadka musliimiin laakiin magaaladan Minus maanta aan degannahay maasha Allah shacabkeeda aad u fiican yahay xagga soo dhaweynta xagga qaabilaadka runtii waana dad aad iyo aad ugu kalsoonahay dad degan weeyaan maasha Allah marka wax dhibaato ah hadda aan sheegan karno kalma waayahay maxaad ku baaqaday hadalka ugu dambeeyay oo ugu dambeyn oo baaqaad jeedin lahayd maxaad ka mid waxaa jirta runtii Soomaalida maanta Jarmalka degan dhammaan gobolada Jarmalkaba khaas ahaan gobolka Rayna Faris waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta inay ku soo xaadiraan masaajidka mar kastaba iyo waqti kastaba inay ku xirnaadaan meelaha ganacsiga ee Soomaalidu ay leedahay sida dukaanka xagga wacyigelin ahaan waxaan ka wacyigelinayaa dhalinyarta degan Jarmalka khaas ahaan gobolka Rayna Faris inay ka digtoonaadaan waxyaabaha balwadda maandooriyaasha dhibaato u keenaya naftooda in dadka Soomaaliyeed ee maanta Rayna Faris degan iyo dhammaanba Jarmalkaba inay isku duubnaadaan ka tashtaan ayagooda iyo wayahooda mustaqbalka iyo horumarkooda waad maasantahay aad iyo aad soo daawadayaal Cabdiraxmaan oo mahad celinaya waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Minus wuxuu inooga warbixinayay masjidkan dhabarkiga ka muuqda
daawadayaal hadda waxaan gudaha usoo galay gudaha masjidka waxaan rabaa inaan booqdo xafiiska masjidka si aan warbixin guud ahaan idinkaga siiyo sida Soomaalida ku nool magaaladan ay u yimaadaan masjidkan وهاجا داوديال هذا وحنا جودها وجرا حفيز كمسجد كا مجرد ماينس وأنا وصلت دونينا وربحب بحدة إني كاسيو هراي وحاول داوتين قار كم إذا رغيرة كنا المجرد أنا وكور بحدة مسجد كان هذا وحنا هراي ميت كم إذا dadka gacanta ku haya howlaha ka socda masjidka walaal soo dhawow magacaaga inoogu bilaaw waxaan ka soo booqday magaaladiina anu mid inaan warbixin guud ka bixiyo si bulshada aan qaarkooda ogeyn aan u gaarsiiyo waxa warbixin naga siisaa howlka ka socota gudaha masjidka iyo sida Soomaalida uga qayb qaataan wax kasta looga baahan yahay masjidkan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا كسر مقالة ماينس مسجد كأبو بكر في سبان أبو بكر ماينس ذا كله سيدا الله صعتان بوحد شنو مسجد كله كان كفعوين كيا في سبان كان ماينس بكيا لو مقالة مطانة برشلونة يسكو حرام تهاي مسجد كان واحد وقفته واحد مسوكو كرنا معها سومالي هذا إنه بربرين من بدن بلقى كلا داتي waxaan oran karaa khayr Allah si walaalahay naga horeeyay hawshan ka shaqeeyay furitaankan gudiga hadda shaqeynayna waa gudiga toddobaad baan filayaa waa qoris ku dhib ku walba sanad laba sano marka waxyaabaha la qabto wax la soo koobi kara maaha muxaadaraadka kamida ilmo wax lagu baraa kamida kaayaga xanuunsan oo jiran warkeena meesha lagu daaweeyaa kamida kuwa ilmaha laga qaato oo lagu gurmada kamida waa muhiimada waa isku xirka ummadda community ahaan xilliyada qaar masjidka sidaad ii sheegtay waxba lagu bartaa oo arday baa quraanka loogu dhigaa marka ma full time waqti buuxo oo maalin kasta yimaadaan mise waa maalmo kamid ah weegi sida uu socotaba qorbuhu way adag tahay ilmuhu in toddoba beri ay dugsi imaadaan aad bay adag tahay wax la baro shanta maalin oo kale san loo socno waxa iskoolaad kale wada tagaan waa labada maalin weekendiga marka waa sabtida iyo xadda ilmaad u tira badan oo Soomaali ah isku imaado meeshaan wax lagu baraa sidoo kale waxaan qabsanaa muxaadarooyin marka masjidkan laga hadlayo maadaama aad sheegtay in gacan isku dhib ay tahay hadda maamulka gacanta ku haya masjidkan dhibaatooyin aad kala kulantaan dadka wadankan ama waxyaabo faragelin ah oo Soomaali ahaan aad tabanaysaan miyaa jira mise waa caadi masjidkan hadaynu dhibaatooyinka ugu badan ummadda haysato waxaa weeye masaajidada meelaha laga furay waa deriska weeye meelaha ku dhagan xaqiiqiyan masjidkan wuxuu leeyahay deris wanaagsan centerka magaalada sida Baanhofka ama train station wuxuu jiraa wax taqriiban 400-370 mitir meelahaas meel center ku yaala haddii Soomaalida aagan degana waa isku siir xirmayaan tusaale ahaan waxay naga soo horjeedo dukaan weyn sida aragtayba ayuuna wax walba qofka Soomaaliga u baahan yahay ka helayo waxa ka hooseeya timajarihi tahay gabdhuhu timaha dacanay hagaagsanayay balama gaar loo sameeyo ragga oo kale lagu jaro muqaayadii baa inagu dhagan marka waa community ag Soomaalidu ay ku soo badanayso marka insha Allah taala xarjeen wax kale wax badan laga dhiman oo kale inaynu ku dari doono su'aashaadii ahayd wax caqabada ma la kulantaan xaqiiqin wax caqabada oo aan la kulanay ilaa hadda ma jirto bulsho ahaan Soomaalidu waa taqaanaa maamulka hadeen nahay hadda ugu dambeeyay talada gacanta ku hayo bulshada Soomaaliyeed ee masjidkan ku xiran xaqiiqin dad wanaagsan qalb wanaagsan jacayl caawimaad min halkan ku soo gaaray dadkii cusub wali aan degin isku xirnaasho iyo isku tanaasul iyo hor socod iyo ba midda kale waxa weeyaan uga faa'iideysanay fursadan xaqiiqiyan masjidkan iyo ka kala jaaliyad Soomaaliyeed ku dhisan yahay jaaliyad Soomaaliyeed ku dhisan yahay labada masjid fiis Abu Bakar fiis Baden masjid Abu Bakar fiis Baden iyo masjid Abu Bakar Mainis waxyaabaha ay tiigsanayaan waxa kamid ah inay insha Allah taala dhul ilaa $2 milyan oo dollar loo qiyaasay al ismihiisii macal baakinadu wuxuu in mustaqbalka u gudbaan ka baxaan mawlacyada krooyinkan oo umad isku duuban isjecel waxaan ka dareemaysaa koontada masjidka dhaqaalahooda labada masjidba ugu yaraan taqriiban 400-300 qof baa ku xiran oo bil walba toos la baxday inta kale jecel oo wali aan la gaarin baa ka sii badan marka waa wax isku duubni lagu gaaray aadi marka ugu dambeyn anagoo soo koobayna maxaad jeceshahay fariinka dhex guuxiisa oo aad rabto in bulshada aad la wadaagto wallahi fariin iyo dhex guuxiisa way jirtaa Soomaalidu marka Allah la gudi ahaan iyo ummadda aagan ku dhaqan inta badan waxa inoo imaado ummad baa inoo timaado mahal magaalada wada degan yihiin magaalada wada degan yihiin
shan jaalidood toban jaalidood baa ka dhisan dadka qabyaalada quran ba u kala baxeen waxa weeye qof walba cirigirigii iyo rafaadkii dhulkii kaga yimid baa haysato waxa dhibka waxa keenayna waxa weeye waa jaaliyadahan qabyaalaysan jaaliyadahan dalaha gaarka wada boorsooyinka lagu wato garabka lagu wato tuunka badan waxa ilaahay uga baraya kuwa tilmaamaya uguna wacdinaya si gaar ahaan waan ugu sheegnaa laakiin si guud ummadaan waxyaabaha lagu wada socon karo oo la isku xirmi karo la isku jeclaan karo waa in khayrka loo adeego waa in khayrka la isku kaashado haddaynu meesha maxaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay kaayaga xanuunsan inaynu ka warqabno waxaynu u baahannahay kaayaga dhinta inaynu duugno waxaynu u baahannahay kaayaga musaafirka inaynu caawino waxaynu u baahannahay kaayaga dhibaatooyinka degdega la soo wajahday inaynu iskugu tagno waxaynu u baahannahay kaayaga jira inaynu quraan saarano oo jirooyinka qeybahan inaynu quraan saarano meelahan iskugu imaano baahideedu mid yar ma aha waxaan u baahannahay hooyada ilmaha laga qaatay inkastoo waayadan xaqiiqiyan maalmaha ugu dambeeyey aan xoogaa yar cudurdaar yar aan sheeganay shaqadayna yar gaabatay guddiga naga horreeyay waxaan ka dareemayaa annaga naga horreeyay biidnillaahi tacaala allaha barakeeye wax badan bay qabteen laakiin guddigeenan hadda shaqada gacanta ku hayo biidnillahi tacaala waxaan rajaynaynaa in waxyaabaha ummadda nooga fadhiyaan inaan u istaagno laakiin isku duubnidayadu iyo isku xirnaayashahayadu الأولتيم وحوي إنه إلهي وقبقنا ومضينا dadka masaakiinta nalanoolna aynu maaragtay sigaar u fiiran ummadan martidan u nahay in soo dhaweysay oo guryahoodii nooga baxay oo waxay haysteen wax naga siiyey oo waxa weeye waxa aan naga hagana in wanaag iyo ixtiraam lagula dhaqmo taasaan waa garta waa yahay dawladar aad buu u mahadsan yahay wuxuuna ka hadlayay waxyaabaha masjidkan intii muddada ay gacanta ku hayeen ay la kulmeen ama ay arkeen iyo waxyaabaha ay bulshada u qabtaan barnaamijkeena ayaa weli ku guda jirnaa barnaamijkana waa barnaamijkii kulansan ee Kawthar Media nala socda waan dhowahay magacayga Faadimo Xaashi baa la yiraahdaa masaajidkan waa wanaagsan yahay boqolkiiba boqol wax wanaagsan ayaana meeshaan lagu hayaa acmaasha Allah ayaa lagu gutaa waa lagu cibaadaystaa dhalinyarada maxay ahayto meelaha ku kala lunsan waa lagu soo maragtaa hadiyeeya maxay quraan badan baan ku akhrisanaa ilaahay baan ku barinaa dukaan baan nooga furan ganacsi maqaayad baan leenahay adigu horumar fiican baan rajaynaynaa insha Allah haddii ilaahay yiraahdo aad bay noogu fiican tahay ilaahay baan nimcadaas uga mahad celinaynaa kuman malaayiin ma la soo koobi karo nimcada aan ku sugannahay walaalaheena aan haysan oo Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa in ilaahay intaas oo kale iyo in ka sii badan basiyo annagana midaan haysano ilaahay noo siyaadiyo ayaan ilaahay ka weydiisanaynaa acmaasha iyo cibaadada aan sameynaa in ilaahay khayrkeeda na waafajiyo ilaahay dambi dhaaf baan weydiisanaynaa darajo taamahan weydiisanaynaa in ilaahay diinta saami naga siiyo in ilaahay camalkeena saalax ka dhigo in ilaahay isku soo kaana hadeeyo walaalaheena Soomaaliyeed oo kala maqan in ilaahay isku soo hadeeyo wadankeena in ilaahay nabad caama iyo maslaxa caama nooga siiyo annagana kuwa isjecel in ilaahay naga dhigo anigu intaas baan ku soo koobayaa sidaan aragtidayda u arko waad mahadsantahay hooyo waxaan ka mahad celinayaa ka dumar ahaan marka waqti ku qaadataan oo ma imaataan duruus ahaan ku akhrisataan casharo aad ka qaadataan masjidka ma jira si fiican waa ku qaadanaa dumarkuna xilli bay dhigtaan ciyaalkana xilli baa loo dhigaa raggana intii danaynayso meeshaan intay yimaadaan kitaabadooda ku akhrisayeeda ay ku akhristaan intii quraanka danaynayso taqaana marka aad baa faa'iido uga socotaa waa ku najaxnaa alxamdulillah dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin qofka dumar waddanka ka soo taga in uu dibadda laga helin meelo ay kaga faa'iideystaan ama jaanisyo ay waxay ku akhristaan oo quraankii ay xoog ay ku saaraan marka aragti taa ka bedelna adima qabtaa aniga waan qabaa waxa weeye dalkii qofkii joogay markii horena aan diinta ku wanaagsanay haduu dibad yimaadana hadda awalan isaga maaragtaa waxba laga sii laga sugaynin in asagu qof walba sida u dadaalo ama imacmaala niyadiisu ay tahay oo Allahiisa ugu xiran yahay oo uu rabo hadii uu qoon fiican leeyahay inuu ummadda kale uga faa'iideeyo sidoo ajar uga helo waxa weeye khayr weyn baan ku haysanaa ilaahay lama soo koobi karo ugu dambeyn oo qurbaha lagu wada haynin ugu dambeyn fariinta Kawthar Media aad u marin lahayd dumarka Soomaaliyeed maxay tahay ugu dambeyn Kawthar Media iyo dhalinyarada kale ee da'da waxaan u marinayaa miidiyaha horta ilaahay dadaal waa dadaalayaan dadaal taama Allah uga dhigo oo taaba gala
oo maaragtaa isku duwid iyo isku duubnaan iyo wadajir keena oo dhalinyarada iyo waxyaabaha xoogaa dadka ku kala dhex jira ay uga kaaftoomaan oo madmadowgaas uga baxo maaragtaa isku wado dad wanaagsan oo raaca inaan noqono taa ilaahay baan ka baryayaa marka waxaan u rajaynayaa Kawsar Media guul iyo gobonnimaan u rajaynayaa iyo gacmo isbuuxa iyo iyadoo Soomaalidu isgaar marin ay soo gurmadaan wad ma santahay adaa ku mahad celinaa waan kaga mahadnaqayaa wareysiga ay nasiisay waa hagaag daawadayaal wali barnaamijkayga ayaa la socotaan markan waxaan ku dhex jiraa gudaha xarunta timajaraha ay Soomaalida ku leeyihiin magaaladan sida muuqaalka aad ka dheehan kartaanba halkan waa goobihii adeeg loogu qaban lahaa qof walba oo daneynaya inuu hagaagsado timihiisa sheekada xiisaha badan ayaa ah in halkan aysan gaar u ahayn ragga oo kaliya waxay leedahay qayb kale oo dumar ay yimaadaan isla markaana loogu qabto adeegyada ay markaa ay doonayaan inay ka helaan halkan waa meel ay Soomaalidu badanaa baahidooda xaqabtirtay waxayna ka mid tahay meelaha ereyadan ku yaala meelaha goobahan ku yaala ay Soomaalidu badanaa yimaadaan si ay uga helaan adeegyada ay u baahan yihiin waayahay daawadayaal markan waxaan booqanaynaa maqaayadda Soomaalida ee Maanis oo meel aan saas uga fogeyn meesha aan joogno ku taala wallahi eegno maqaayadda iyo dhalinyarada ku sugan si aan uga hadalno barnaamijkeena qaybtiisa maqaayadda Soomaalida ee magaalada hadda jooga ee Maanis ina keena Hello, soo dhawaada. hadda waxaan gudaha u soo galay gudaha maqaayadda ee magaalada Maanis Hello, langi saabite. Assalamu alaykum. Assalamu rahma. daawadayaal sida idin muuqataba hadda waxaan ku jirnaa gudaha maqaayadda waxaan ku soo booqday dhalinyaro Soomaaliyeed oo gudaha maqaayadda ku sugan waxaan rabaa mid ka mid ah dhalinyaradaas inaan wax ka weydiiyo sida halka loogu caawiyo galbihii ay Soomaalidu isugu yimaadaan walaal soo dhawow magaca walaal waa soo dhawow adiguna magacaygu waa Cabdishaaq Cumar Abbas waxaan ka mid ahay dhalinyarada reer Maanis degan waddanka Jarmalka haddaad u soo noqdo su'aashaada ahayd sidee looga nool yahay ganacsiga magaalada iyo sida Soomaalidu ay ugu caawiyaan meeshaan wallahi meesha horta meel loo baahnaa bay ahayd meeshaan ka horna waxaan dhahay dhalinyaradu waa garanaynaa meeshaan tegi jirnay baanoofiyada iyo meel aan lahayn ma tegi jirnay laakiin hadda waxaad moodaa in isbedel weyn yimi oo meel anagu aanu leenahay oo ku sheekaysanayno oo wax badan bay ka bedeshay micnihii Soomaalida magaalada degan Maanis marka maqaayad qof Soomaali aad kula kulanto ama qof Soomaali uu leeyahay uu ka shaqeeyo aad ku sugan tahay oo wax ka iibsanayso iyo marka aad maqaayad qof kale oo ajnabi aad marka la kulmayso dadka kale ee maqaayadaha kale magaalada ku yaala maxaa isbedel ama dareen nooceed kala wallahi walaal horta waa su'aal wanaagsan kullu marka qof ajnabi wax ka iibsanayso iyo marka qof Soomaali ka iibsanayso wax la isu dhigaa ma jiraan qof Soomaali luqadaada wax ka iibsanaysa marka qaar waxa dhacdo qof ajnabi wax ka iibsanaya wax kale ka iibsada marka waxa rabu bisiyaa marka waxyaabaha kale ugu muhiimsan maqaayadan ka dhaxan waxa weeye markaan waddanka Yurub markaan qaaradan Yurub aad timaado dhalinyarada Soomaalida isu timaado war maxaa dalkii naga soo saaray war maxaa halkan isugu keenay war waddankan yaa leh war waddankii ma ku noqonaynaa su'aalo badan baa is weydiinayna marka waxaan rajeynayaa badan oo dalkii aad horay macna uga soo tagteen ma nidiina la socotaan aad ka wada hadashaan marka si fiican ha inaan micnihiida warheede aan wax ka kororsano nimankaan hormaray inaan qabyaaladii marka tuuladii reerkiina joogtay iyo marka dalkan timaado way kala duwan yihiin daawadayaasha qaarkood waxay ka aaminsan yihiin in fariiq dar ahaan aad isugu imaataan oo waxyaabo wanaagsan aad ka dootaan ama waqti aad ku lumisaan arrinta maxaad uga jawaabi lahayd wallahi de walaal fariiq dirka ku dhiiso aan marka qaar waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay fariiq dirka dad qaybo waxbay ka hadlaan dadka qaar waxay ka wada hadlaan wadanahooda iyo shaqooyinkooda iyo dalkii qayb isaflagaadinaysa haday doonaan waa jiraan laakiin anigu sida wanaagsan wala isku jira dadku way isku jiraan marka sida wanaagsan baan u isticmaalnaa inaanu isku baraarujino inaan Soomaali nahay waddankan Jarmalka hadii shaqo la siinayo Soomaalina shaqo la siinayo aan reer hebel shaqo la siinayn in hadii la dili dhalinyarada dhexdooda ma jirtaa waa wax badan baa jira dadku wax badan bay hadda fahmayaan in micni marka tuuladii reerkiina joogtay iyo maanta Jarmal joogto aad bay u kala fog yihiin tuuladii reerkiina aaminsan nin aakiisa meel la fadhiyaday laakiin maanta waxaad aaminsan tahay qof soo Soomaaliya inaad isku doon saarantiin inaad isku dantiin
inaad isku meel idinku bireen isku meel aad ku gowracatay duciyada ugu muhiimsan aad isleedahay dhalinyarada galbihii aad u xiiseeyaan oo halkan looga hadlo markii la caawinayo wallahi horta waxyaaba waxaan ka xasuustaa sportiga oo kale sportigu wuxuu ka mid yahay nabad kulamada adag gaadiya intii dee sportigu wuxuu ka mid yahay waa nabad bade haddaan aragto meel sport lagaga sheekeynayo dhalinyarada ku sheekeysanayso intii qabiil iyo qabiil qurun laga sheekeynayo sportiga laga sheekeystaa sportiga in siyaasadda laga hadlo dalkii waxa isbedelaya maamulada dalka marxalada ku sugan yahay in cadawgina soo wajahan yahay waa loo baahan dadku waa soo jeedaan in wax la barto maqaayada kaliya ee magaalada maanis ku taala mise maqaayada kale Soomaali leeyihiin baa ku yaala والله أنا وأنت عن حسوس مقاعد كليان حسوستا دكان كان حسوستا تمشريبا كويالا تمشريبا كويالا مساجد بالك نويالا وما شاء الله نعم كجنا واي هاي هرمر نوعيبة هذا دريميسا مركادا أركتك وضعك حلقة أتكسبتها حتى وأتقربها تكون مرشاهي مرش هذا محافر قياو دحية والله وين باو دحية أنا واحد شغال على صوماليا دلك جوكتين تلك يعني هاك إن ما كان دبلو عليه قف صوماليا وقف دماغ بصراحة معك ما ملاينية بس في قف لو دنيش نروش يسوع عينين إياه قف وحلو قاعد إن صراحة أنا ما كان دلك جوكي حاليا قف فاميلنا iyo qofku wiilka maanta ka yimi gobol kale oo Soomaaliya kan gobol ka yimi iga faa'iido badan yahay maanta marka wax badan baan waxaan dhahay faa'iido badan ma ku qabnaa meesha marka soo jeedintaada kana yar ahaan maxaad la wadaagaysaa bulshada ka daawanaysa Kawthar Media horta waan salaamaya guud ahaan Soomaali maxaad meel kasta oo daafaha dunida ka joogtaan talada kaliya aan siinaya dhalinyarada Soomaalida waxa weeye mustaqbalkaagii baad waxaad ka noqotay markhaati oo aad u jeedo oo niman ay kala goynayaan mustaqbalka ubadkiina markhaati ka noqonin intaas u jeedinay waad mahadsan tahay daawadayaal sida muuqaalka baad ka dheehan kartaan waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Maanis oo barnaamijka gala qayb galaya maadaama galabta aan soo booqday maqaayada Soomaalida ay ku leedahay magaalada Kawthar aad baa ugu mahadsan tahay booqashada nagu soo booqatay meherada Soomaalida aad baa ugu mahadsan tahay horta meheradan Soomaali waa iskale adii 2000 iyo waxay gashay 19 dhamaadkeedii san jeclahay ma sha Allah dhalinyartu way isku imaataa saradii oo kale markii shaqada laga soo baxo kaleento waa meel aan soo tiigsano aan imaano mar walbeeto dhalinyarta badanaa way wada imaataa ciyaarahan ka daawanaa marmar kale ciyaaraha jiran waa iska soo fadhiisanaa waqtan ku qaadanaa waan sheekaysanaa isku wareysanaa marka wallahi aad baa ugu faraxsanahay inay noo sii jirto kuwa badan aan si yeelano intaas oo aga baxaya qalbiga markii la isugu yimaado dhalinyarada halkan ay imaadaan waxyaabaha aad dareentaan iyo waxyaabaha inta badan looga hadlo meheradan Soomaalida hadal heeskeedin ah maxaa kamid ah wallahi horta dad badan oo iskugu imaado dhalinyar iyo odayaal bay leeyihiin odayaasha geestooda u sheekaystaan oo wadankan bay ka sheekaystaan laakiin anaka dhalinyarta waxaan isweydiino waxaan qabanno maxaa ka soo shaqeysay iyo xakeed maanta ku maqneed iyo adiga shaqooyinkan oo baa iskaga waranaa qofkii ma taqaanay la caawin karo meesha lagu caawin karo waa la caawiyaa waayahay bal markii dhalinyarada ay la kulantid oo halkan aad imaato dareen noocee baad dareentahay markii aadan helin 2019 ka hor wadanka waad joogtay gaar ahaan magaaladan farqi noocee baa u dhaxeeya marka hadda iyo markaagii hore wallahi horta 2019 intii la furan koor waa joogay dhowr sano sii joogay hadda ka horta dhalinyar ismaaman arki jirin badanaa mar iyo dhifaan baan hofka isku arki jirnay laakiin hadda nin dadkiisa soo dhaxgalaa noqonaysaa dad Soomaalida aad baa arkaysaa qof aad wareystaan arkaysaa wallahi waxyaalo fara badan baan ka faa'iidnay ma la soo koobi karin guud ahaan daawadayaal halka waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii kulansan Kawthar Media oo toddobaadkan uga hadlaynay horumarka dhanka ganacsiga Soomaalida ku nool Maanis ay ka sameeyeen iyo bulshada Maanis sida ay markaa ula macaamilaan ganacsiga Soomaaliyeed ee halkan ku leh xarumaha ganacsi barnaamijkii waa gaynta waa soo saaridii iyo soo jeedintii iyo tabintii Kawthar Abdiraxmaan Cilmi intaan mar kale barnaamij caankan oo kale ay toddobaadka kale aan ku wada kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabadii warsan amaana Allah barnaamijkan kulansan Kawthar Media waa barnaamij toddobaadle ah toddobaad kasta mar ayaad ka daawan doontaan YouTube-ka Kawthar daawada la soco oo nagu soo biir haddaad nagu cusub tahay subscribe-na si gambalaalka furo qaybta korona si raaci si fariinteena ay ku soo gaarto sida ugu dhaqsiyaha badan waad mahadsantihiin nabadii warsan sana uma wareegto bulshaday u warantaa Kawthar Media walagu aflaxay Kawthar Media walagu aflaxay